السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما مدة الصوماليات ميل كستو joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada DKM kuna hadlaya magacooda, waxaan halkan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed guud iyo dibad meel kastoo joogtaan oon idin leeyahay maanta anigoo aad boqolkiiba boqol uga xun gabadha xildhibaanada ee diiday kana soo horjeedsatay ninka ajaanibka ah dalka la keenayo weliba baarlamankiina nin baqan iyo nin laaluush qaataa ay noqdeen iyo nin maxaa kaa galaya. Gabadha kaliya ee diiday sida loo weeraray ee cadaanka ah ayaan aad anigoo uga xun. waxaan halkan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqayaa, dhalinyaroy maanta waa maalinteennii, fadhi ma yaalo. dalkii in la qabsadaa la doonayaa. labada nin ee ajaanibka waa ajaanibi maaha, Soomaali baan u maleynayaa, farmaajo kheyre ee doonaya inay ajaanib dalka ku beeraan, ajaanib dalka ku qabsadaan. Maanta loo kaco gabadha muwaadinada ah ee xildhibaanada ah, xildhibaannimadeedii xasaanadeedii mid gabadha xildhibaanada ah ee xildhibaannimadeedii iyo sharcigiiba dhinaca inta laga maray walaasheed lagu haysto, iyo dalkii Soomaaliyeed oo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed u maqan tahay. uma baahnin oday qabyaaladaysta oo maanta ka qeyrkeena naga reebaya. uma baahnin siyaasi calooshiisu shaqaystaa. maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa, annaga haddaanu DKM nahay, urur baan inii sameynay. dhalinyaroy ku soo biira, aanu dalkeena ku badbaadsano maanta sidii SYL oo kale. kacdoon sameyno, inagu u tashana dalkeena. maanta oday qabyaaladaystayo qabyaalad doonaya inuu wax ku helo iyo siyaasi calooshiyu shaqaystaa looma baahna. maanta dhalinyaro u baaqaynaa, maalin walba waan idin baaqnaa. maalin walba waxaan wax ka xun iman doonaa, waxa markaa taagan wax ka xun iman doonaa baan idinku baaqaynaa. war dhalinyaroy maanta aynu dalkeena xoreysano. dalkeena maanta dhalinyaro u baahan yahay. mar haddii gabdhihii dhaqankii Soomaalida lasoo dhaafay macaa oo gabadhnimo xataa lagu ixtiraami waayey, xildhibaannimo lagu ixtiraami waayey, sharcigii sidaa loogu tuntay. dhaqan bay Soomaalidu lahayd inay gabadha Soomaaliyeed la ilaaliyo oo loola dhaqmay sidii nin raga dee, iyadoo xildhibaana wixii qadada ay diiday in loo adeegsado gabadh kale. gabadhii kale markii oo laba dumar ay isku dhaceen lagu wanjalo oo walaasheedu aan uga dhoweyn la yidhaahdo tanaa gabadhan la dagaalantay xildhibaanada, iyadii oo xildhibaanada muunay gacan loo qaaday, weliba askari u qaaday ciidamada Soomaaliya. taas maanta dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa oon idin leeyahay, dhalinyaroy dalka idinkaale, maanta aynu wax ka qabanno. waa maalinteennii. waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku baaqayaa, dhalinyarada Soomaaliyeed dibad iyo gudab
meel kastay joogtaan aynu maanta ka dhidhino SYL ba dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahayd nimankii dalka gumeysiga ka saaray innaguna maanta kuwii la midkaa baynu nahay dhalinyarada Soomaalida waxaan aada ugu baaqayaa oo in leeyahay dhalinyaroy war anaga maxayni sameynay daladii ururkiiba inta kusoo biira dalkeena aynu xoreysano ayahayna ka tashano wallaahi wabilaahi watallaahi Eritreyaan Kenyaan iyo Ethiopiana way ku jiraan Eritreyaanna wala Kenya dalkeena waxaa ku soo socday ee la doonaya nimanka ninka Ingiriiska uga yeeranaya dibadda kule kii muwaadinku halkan taagan bangiga dhexe qabanaya gabadhii ka hadashana lagu xidhaya maxaynu sugaynaa eegnaa maanta inuu haray sheegab waxaynu haray maanta ay sugnaa waa maxay waxaan ku baaqayaa oo walaaladii dhalinyarada Soomaaliyeed maanta aanu dhalinyaro baanahay aan leeyahay maanta waxa joogay garoon waxa bari iman doona garan mayno maanta wixii joogay inuu ka qaban weyn quwadda koobaad ee dowladda ama ummadda yeelatana waa dhalinyarada xiluu nin kasta ugu xoog badan weeyaan xiluu ugu karti badan weeyaan waxa weeyaan waxaan leeyahay maanta aynu dalkeena u tashano samata bixino ayayna ka tashano dalkeeni oo barwaaqa aynu odayani siyaasiyo aynu haddii laba cisho kaliya lagu kaco laga saarayo aynu dalkeena halkaa uga fadhinaa oo dalkeeni inagu taagan inagu dul iibsanaya Nelson Mandela kaliya South Africa samata bixiyay maanta Soomaaliyeed cudurkeena dil waa qabyaalad waxayna kala qoqobay waa qabyaalad Ingiriis waxa reejin balka marmariyay shanta meelood wuxuu inagu qaybiyay reer galbeed waa qabyaalad weeyaan iyagu ma aynu ku beeray maanta waxaan inku baaqayaa oo in leeyahay war anaga daladii ni sameeynay DKM hogaamiyaha noqda hadda doontaan والله وبالله وطلعي أنا كنت قدوميكم القارانة هي أنا إنكوريجيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My sister's still in jail. No matter what I do, I mean, I've talked to everyone. Unless Rais Wazara speaks and says release her. Rais Wazara have showed me his full power, that he has, that as an MP we have no power. Maanta qof xildhibaan iyo wasiir ama qof taageeri karto maanta iga dhicin karto this injustice that I'm being attacked for no reason. I have never went against the government. I have never spoke against the government. I only do what I'm supposed to do when there's things that I don't support. I go against it, but I have never attacked them directly or anything. Like imanta gabadh walaashi in laga jaro oo gabadh walaashi la xiro oo loo isticmaalo gabar oo digir midab. I'm sorry, telephone is so galay. I'm just hopeless. Guriyan iskaga xirnaa waxa lagu dhahay habixin. I feel threatened for myself. Walaashi way xiran tahay. No one can help me. قدومي برلمان عاون كرين شعب عاون كرين حلدوان وزيرنا يسوق ربستان كرين عاون كرين. No one can say anything on what's going on today. I have no justice. حلدوان حسانية ذم اللي ما أنت أسكري بيجسوا علي الباب. قولي أسكاج حرناها ولا شيء ما أسود يسنكر. خير ما أنت باوركو إيشكت إله سبحانه وتعالى صلاة هذا مرخبوتك إله سبحانه وتعالى كوين. ما أنت قف من آدم أو يقرب كي يتاجر مشرت لكن إلهي كيكو أورتي ما أنت مالي واي برنا ومالي كلا today مالي واي أدون واي برنا وعاقرة power كمان إيش يا جت غيره. You want me to come and beg you and kiss your legs is the message that I have gotten,
but ilahi subhanahu wa ta'ala utala sheeg I have supported dowladda from day one farmaajo from day one maanta dowladda aan istahay is going to bring a change for you and maanta aniga gonna attack oo maanta barlamaanka lagu attaagaray I was the victim or the so attaagaray because I had an opinion and a voice said I have never gotten against the government all I did is do what my duty is haddaan aniga wax aaminsanin ma aaminsanin haddaan aaminsana waa aaminsanahay regardless of what I believed waxa rabto waa lagu xasan ninka ajnabiga arabta inuu ku noqoyo waa lagu sameeyay maanta aniga wax maadaama la xiri karin gabadh walaashay in la xiro oo gabdha oo gabar digir midaf la iiso isticmaashid inay ila soo dagaasho mindil iiso baxso maanta qalin askari inta ugu dhacay inta kala qabanaysa dhig ka imaade maanta walaashay lagu nabay oo case been la sameeyo oo xildhibaano iyo wasiiriin oo marqaati fur loogu dhigay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka weyn kulligoodana maanta waa adduun bir laakiin waa aakhiro nafta maray go'da and you know what I'm just sick and tired lagu dhahayo don't say this san holding kan holding you will get assassinated lagu dilaya you know what I'm tired of that أنا ماشان dadka maanta u noqday ma u noqonay inaan hadli kari waayo maanta anything that aniga as an MP aan ka qayb qaato oo that's dhibaato ku ah ana aqal isu istaajinaya a lot of you guys ma garan kartiin what xildhibaanada are going through laakiin all you guys know is waxaan ka maqashin TV inta ka maqashin life is depend on this maanta u jeedin I'm arrested in my own house because I fear ma haysani xabado ma haysti maxaladihi jiray gaari bul have those things okay so I cannot just survive through xabad iyo bombe iyo waxa soo igu soo talagashay my own very own government ani aan kamid ahay oo shal aan soo doortay anu orday farmaajo maanta iska aamusan know that anu xildhibaanadiisa wax walba igu sameeynaya just This is so unfortunate and so unfortunate in the girl aniga oo lagu qaad oo loo isticmaalo maxaa weeye macad because I just don't things ma ahan aniga ma ihi dowladna ma burburiyo mana ka shaqeeyo dowladna burburiyo ma ihi I've never been macad ma ahan waan la shaqeeyay farmaajo waa og yahay he knows me ما فهمتن لكن إلهي سبحانه وتعالى ما أنت فرماجي يا خير ما أنت حوقي باورك أي شيء قلت do you think that كاجين شيء يعني ما أنت ماشي كسرعة أمرك everything I know إذا صار أمرت أنا ده هذا ما أنت مونا نيست كم لقتي نيجش مسيء بريدو that's the only way I was وداني لكن باورك أدي أشيء قلت إلهي سبحانه وتعالى تلا سرت ههلن وحدهن don't say nothing ولو وحنا يا ولو قدلي يا إلهي سبحانه وتعالى بكاوين ما أنت نباورك أي شيء قلتي حسن خير إلهي وأذك أنتي وأني أنتي بحقيقة جري ما أنت ما موينك وأني هو يوينك يجنقون قرآن حشمين جري ومركز ما علي إله لك يعني أني سنكاس يجعلن because I have my own opinion والشرع قعدت الحوق لو جيدة هنا وحيسو أن ربنا نهضو ناكل ده نايم ساس وده يسابلان كده يستاق مدلي لبا إسلانو وإذا المهودنا عقرنا سناب شات يقول شرو المهودنا السوء التاقرين حالة إيمان تبدأ السوء عينية ودهن هو إذن ما تعبت all because لكن إيمان تدتك كده حشقين يسوى ضد فلا family bana هنا بروا هشيننا it's okay I'm unfortunate إن السياسة واستعمال شعرينتا وقبل ولا شيء ما تسافر قرينا يسو just in I will never come to you and beg you لا يلا بريا بنادم ما بريا فهمت and I've told you نفتا مر بيقول إيسا if I go and I get killed one of your عسكري وحس it's okay it's my time ولكن days are numbered أنت شعبنا ما هيسي تاجر وزير ما هيسي حدوان ما هيسي I have no حساسية ما هيسي حدوان when I just حدوانه ما قاعد نكون هنا حدوان ما أنت استاج كرهالي كرمتشتو وزيرين تدمانت no one can talk أيكو قلب كبرد ولا شيء شال مركي أنا قلي دلي يلي وحين يكركي قلبو تمنية ننكحر وزير كدين توا شال مركي حلفته تشوجنا he was there and he knew what he did to me he couldn't even face my face وانا أوجي هاي وانا وزير كدين تا دي محاكا أكتها
حقدرا كشقينيسا just so wasiirnimada inaa haysatid you're putting someone in jail or هذا حر just so you can protect الدولة maanta waxay igu sameynaysaa jirta ma fahantay wasiirka diinta laga dhiga which means wax ka garanaysa haddaad wax ka garanaysid dadkan uquumaga galin aniguna shalay in inta u fiirsato gabadha walaashay markii gaari ka soo baxdana ay rabtay inay iga soo iga kala inaa qabato aaxirtay oo qeyra u ka tagteen as inaan ani mucaarad ahaayo oo maxaa la dhihi jiray inkana protect garanaysan dawladda iyo governmentka ka dhigteen just darajo iyo magac iyo maxaa la dhihi jiray lacag ku heshin naagaha anigu soo bodo hooyooyinka oo kala ahayaan sharafta u haay oo maalin ilaa laakiin habar macaan aan dhahay oo mindida ii soo baxsaday maanta oo askarigi darbaaxyada igu dhufta la xiran oo marqaati loo isticmaalay askarigi aniga maanta gacanta ii soo qaado la xiran marqaati ay wada joogeen maanta oo wasiirna hadal kan oo maxalbaan hadal kan oo ayakana marqaati ay ka ahaayeen oo maanta case ban loo sameeyay walaashay naagtina takhtar is seexisay oo gabdhaheedan iga soo caanayeen halkan إلى حق اسمعناك إلى حق در ما أستاجو ما فهمت دقنا وكو أركيسين محليج إلى اسم محمد تعالى قفك بن آدم لسان ضم لقى been victimized from my own people in my own government and I have no power today and I have no one that's standing up for me today لكن إلهي بكون وحول لكن خير you know what ما أونيه no it's okay I'm not gonna give up إن أنا عصلا أرض ودن كبحالة سما نفتن إلهي بحاي you know ما أنت ولا شيء جلبك بريسة and no one can talk to you سما it's okay I'm the one who supported it yesterday وضحوينها it's me who was running for him yesterday مركو أرضي هذا like he doesn't know my name ما بيقرأنا يبا but it's okay like he might be manisa justice will come sooner or later أنا وصلاة اللي كنت سكنية that's all I'm gonna do الله سبحانه وتعالى بريئة خلاص بني آدم ما نسي قرب ستيك all I have is this all we see مالك سحلوان على الهاي أساسا تهاي تفتها كانت تهاي but this is power king no justice ما أنت الدولة معاها اللي power كتسيسو to show you torture you نقولنا استدقالي prime minister we have nothing to do أدونك الشقة نوتة على سمال أوتالو ما شان صار سحنا إن أجنب اللي كانوا لو ديبو بانكينج بيجين لو ديبو حدوانها دماتل كي هاللي كرين كي محللي جرى كدودنا ومعارضة والو قيلنا يا شعب كحتى ودفنجرنا يا but you guys ما قرن كرتين the things that's happening inside like ما أنتوا وجدين how powerless I am and how much power it is here is وزاره هيك ما أنت my I'm done I wish Somali one day is I wish one day in a digi and الشعب كان بلان بحث من كلام واحد يرقل هذا الدريمة I wish that we stop being victims and fight for our rights, whether it's even the government itself. Because there's no rights. All I ever wanted to do is fight for my country. All I ever wanted to do is help my people. All I ever wanted to do. And I've given up my comfortable life and to do what I can. Like, you really can anything. That's got their organ power called. And we forget about Qabil. How long are we going to be living in this situation? I have chose this government myself, thinking there's change. But today, I fear for myself. I fear for my life. Not from anything else, from my own very government. I think I started the hope and raja angelia, hoping that one day one can be hindona. Like, you know what? I'm not gonna give up.
days are numbered. ما فهمت هدوني إلهي نفتي قادنو قارن my goalنا إن شاء الله إلهي وحن كبريها one day إني صبح عندنا يرو who can stand up and fight because this is tiring. ما أنت ينكع عفصدا دولة من كعفصدا for my life. Who am I feeling today? ما أنت مركلي يسوعلنا كلي يسوعلنا أسكري كده يا وي قاري كان حلوان هبل ما صار ما قاعد شيء جاي صباحا. They know exactly. I know you guys track me everywhere. That's the only weapon I have. أنا ما هيستي محل دي جد بس كوني حبضة ما هيستي لكن لا هبة تلا صارت. أنا إن شاء الله I'm hoping that's kind of in an upland that can fight for justice one day. That's all I'm hoping for. And I leave it إلهي بنكو إلهي سبحانه وتعالى أو رب ما أنت كاجد تعوده حسن خيره. The power you have today إلهي وكسي بريك قاضي كرم. مركب إلهي كاسو صار. لبدي يصدم دقيقة. Listen to this one. This is just so sad. عيدك بوليسكا ويمد لبنى حلبان لول عبدي آدم وكدعوون إيسا هذا سنة مريم قليف أبو. So injustice. وحال السير فيرتو كدبنا وحراعي عيدا وحين أوجيس عيدا كي قفك أي كدعوون إيسا أو هذا سناها. إلى نارتك وقفقي. صليق أيال وصو حري. Oh my God. إلى مركي وصو حري أيضا الرفيرتو دي بقى. يا هدن. Oh please. وما أنت لا جرب إنه عدالة سمع. Because he's. they've done it on محل جرى آب. إلى حق أدب إلى هذا حق تسكت إلى هذا كان حقي إلى حقيقة صار. There's no justice. My sister must. Madam, any hurricane because now they have to make it usmid. إلهي كبر إلهي نارتك وقفقي إلهي نارتك وقفقي إلهي نارتك وقفقي بيدوا أسعنا على مسار أسعنا we were on the list of قدوميها برلمان كان وين كقرن الله بنتي سدوا فكنيسة كلها قدوميها برلمان كيس الليست كيسان كجر وحن أسعنا على مسار بيدوا waxay ka dhigay that we were escaping inna lillahi ilaahu rabbi rahmaano ilaahu dadkan ada bin aadag ilaahu dadkan ada u keeni kartid calaamad degdeg ilaahu u keen ilaahu isheeda ka soo saar ilaahu calaamad degdeg u keen ilaahu calaamad degdeg u keen aniga Soomaali ina caawinaad weydiisanaya yani qabiil mali Soomaali ina caawinaad weydiisanaya I don't work with the qabiil haddaan maanta in ahaan lahay from any other tribe do you think they would do this to me they wouldn't do this to me in a been iga sameysnin weyn oo maxaa la dhihi jiray ilmo leh oo aakhira sugayso oo dhimanayo inuu been iga sameysto because of dawladda ku qasabta because of the prime minister is telling him to do a case because I'm on the media everywhere. This is what they do. Such a lie. Can you guys believe this? Ninkan when all محلديه جري مسؤولك أو ما أنت he can't stand up for justice أو بنت سميسنا أنا ما يصير روح أسعن على ما تسارك أسعن أو محلديه جري south west ما فهمت أنا لقي إنفاد قري أنا كتشر نمعوها هاي ليست قدوميها برلمانكو هذا دي لقى في هذا دي لقى تتر كتشرته this is unjustice unfair for محلديه جري حكومة فرماج يقير وحسمينيسين أنا يقول شيء وسمينيسين ما دام أنا ما أنت أكتاجنين أو أنا هيسنين people to support me because we نيجا عفسنا يعني إلهي سبحانه وتعالى أما أنت نتصدون حق إلهي سبحانه وتعالى I pray for you guys and وأنا أركضون تين ما أنت قبل المحلدي يجي مع مضى صوص سميستي أبك صوص استعماشه أصوّع عزتي أنا أيضا إنزقالو هدي علامات خطالن it was me ما دام أنا اللي حركة ما يصير الله استعماله إلهي سبحانه وتعالى وجوجا ونبحر يا هدن
oo police oo maanta laga rabo inuu cadaalad sameeyo because he's dhaawac they've done it on maxaa la dhihi jiray aab ilaaho xaqada ilaa adaa xaqa tusi kartid ilaa dadkan xaqi ilaa xaqay ka soo saar there's no justice my sister madam ani ay xiri karin because now they have to in a case of submit ilaahay ka baq ilaaho naarta kugu fogay ilaaho naarta kugu fogay ilaaho naarta kugu fogay beedhawa u socon cala masaara u socon we were on the list of gudoomiyaha